haddii aad shaqaalo tahay oo lagu yidhaahdo 10 maalmood maalin ka mid a haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baa lagu siinaya maxaad samayn lahayd haddaba wax weyn oo kaleba lama sheegin waan shaqaalaad ahayd miskiin oo $1,000 $500 $700 wax qaata dabeetana waxaa lagu yidhi 10 casho maalin baa ku jirta haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baad qaadanaysaa 1000 bilood mushaharkood waa imisa dee waa pension baad gelaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa 83 iyo dheeraad 83 sano iyo dheeraad weeyaan haddiiba ay shaqaduba markaa ku xidhantay mushaharka gebigiisuba haddaad 10 casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso pensionka aad qaadanayso oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyinka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati اlqadri leylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo 1000 bilood 1000 bilood waa dhowr iyo 80 sannadood oo 83 sano wax ka badan bilaa dheer 83 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 83 sannadood salaadaad 1000 bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrka aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqdaa idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi maxamed leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nebigu yihi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama leylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaanan واxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka leylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yidhi gufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha اlaxiba waa habeenkaasi qadarkiisi uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo